Assalaamu calaykum. Carabtu waxay ahaayeen Islaamka ka hor mujtamac qabali ah oo qabaa'il ah, qabiilna isku dila. Sidoo kale waxay ahaayeen mujtamac uu ku badan yahay isla weyninka iyo kibirka, sida lagu yaqaano mujtamaca qabaliga oo qabiilada ah. Xilligaas waxaa jiray Islaamka ka hor, waxay ahayd adiga qarni camal Islaamka ka hor. Waxaa jiray nin la yiraahdo Suhayr ibnu Jadiim al-Cabsi. Ninkan wuxuu madax u ahaa mid ka mid ah qabiilada Carabta kuwii ugu waaweynaa uguna xoogganaa reer Bani Cabs. Waxayna ka tirsanaayeen Bani Cabs Qadafaan, ayaga iyo qabiil kale oo la yiraahdo Banu Dubyaan. Ninkan wuxuu madax u ahaa qabiilkiisa. Sababta uu qabiilka madax ugu noqdana waxay ahayd wuxuu lahaa wiilal badan. Wuxuu lahaa 10 wiil, 10 adeer uu ahaa, 10 abti uu ahaa. Carabtuna maadaama mujtamac ay ahaayeen qabiila, ninka wiilasha badan leh dhexdooda. Ninka wiilasha badan wuxuu ahaa nin laga heebeysto. Sidaas darteed wuxuu lahaa Suhayr ibn Jadiima wiil la yiraahdo Shaas. Sidoo kalena wuxuu lahaa gabar uu dhalay waxaa qabay Nucmaan boqorkii manaadirada. Nucmaan ibn Mundir inuu ahaa iyo awowgiis Nucmaan ibn Imru al-Qays inuu ahaa waa la isku khilaafay. Laakiin boqorkii manaadiradu waxay ahaayeen qabiiladii Carabta qabiil ka mid ah oo ismaamul hoosaad lahaa kana tirsanaa dowladii Farisiinta Ciraaqna joogay. boqorkaas gabar ka qabay. Wiilkan marka uu dhalay ee Shaas la dhaho wuxuu booqday walaashiis markuu booqday uu kasoo tagayana boqorkii walaashiis qabay oo Nucmaan ahaa wuxuu soo siiyey catar ama cambar iyo udgoon aan laga helin ilaa boqorada agtooda maahane, dadka caadiga aan laga helin boqorada agtooda maahane. Markii uu soo tagay waxaa la socday 2 adoon. Markii guryahooda ay ku soo dhawaadeen, 2 adoon ayuu diray. Wuxuu yiri iga sii hormar aabahayna u sheegay inaan soo dhawahay. Wuxuu soo maray nin la yiraahdo Thaclab ibn al-A'raj al-Qanawi. Qanawiyiintuna waxay ahaayeen daris la ah Bani Cabs dhanka deegaanka. Ninkanna wuxuu ahaa nin ka ugaarsada meelaha biyaha. Sababta ugaarta waxay u soo doonanaysaa tugaga iyo meelaha biyuhu fadhiyaan meelahaas ayuu ka ugaarsan jiray. Ninkan waxaa soo maray wiilkii uu dhalay Shaas ee uu dhalay Suhayr ibn Jadiima. Kadibna wuxuu weydiiyey biyo ma haysaa. Laakiin ninkan uu caayay Shaasna uu isaga soo tagay. Markii uu ka gudbay waxaa u soo carfay wixii uu sitay oo udgoon ahaa. Kadibna wuxuu damcay udgoonkii. Kadibna wuxuu qaatay waran wuxuu ku dhuftay Shaasna sidaas ayuu ku geeriyooday. Laakiin markuu wajigiisa fiiriyay uu aqoonsaday. Waa shalaayay, laakiin shalayto xilligaas waxba tani maydo. Kadib wuxuu sameeyay inuu wiilkii duugo oo qariyo meydkiisa, wixii uu sitay oo udgoon ahayna ka qaato. Kadibna uu geeyay islaantiisii oo Minsham la dhihi jiray. Islaantiisii uu geeyay, kadibna sheekadii u sheegay. Wuxuuna yiri qari waa sir, cidna ay ogaan udgoonkaana qari. Markii uu sugay Suhayr ibn Jadiima wiilkiisii dhowr bari, kadibna uu imaan waayay, wuxuu cid u diray Nucmaan ibn Mundir. Nucmaan ibn Mundirna wuxuu yiri waxaan soo siiyay wiilkaagii hadiyado, kadibna waa soo diray. Ninkan wuxuu dareemay markii wiilkiisii inuu dhaxda ka baxay. Wuxuu diray rag, waxay raaceen 2 adoon. Kadibna waxaa la barbaaray raadkii iyo meeshii ugu wardambeyday. Kadibna waxay heleen qabrigii wiilka Suhayr ibn Jadiima. Markii wiilkiisii la soo helay oo dhintay, isna uusan ogeyn cid dishay, 1 sano oo kaamila oo dhammaystiran wuxuu u fikirayay siduu ku soo saari lahaa ninkii dilay wiilkiisa. Wuxuu lahaa adoon caqli badan oo Salaama la yiraahdo. Wuxuu yiri waxaan qalayaa geel, hilib qaad. Hilibka neefa la saaraa dhinacyada. Kadibna waxaa la dhex wareegtaa qabiilada dariska ah, ciidaha la dhex wareegay. Kadibna waxaa leedahay waxaan qabaa aroos, gabaraan leeyahay rabaa inaan guuriyo. Waxaan rabaa wax udgoon ma haysto. Ciddii udgoon haydo ha isiido, waxaan siinaa hilibaan uga bedelanaa. Xilligaas lacag ma jirin, waxyaabaha alaabta waa la isku bedelan jiray. Markii qof walba ay soo marto xilada waa cudur daaranay sababtoo ah wax udgoon ma haydo. Laakiin markii la soo gaaray islaantii Minsham ahayd, waxay tiri islaantii kale kaalay anaa ku haayo, laakiin sir waaye
uu sir waaye ha sheegin camal islaantii ayay tiri isii markay sidee waxay tiri inta fiiriday bahalkan lagama helo ilaa dadka boqorada agtoodii xaguu idinka soo galay islaantii Minsham ahayd salaamay u sheegtay qisada siday u dhacday in ninkeedu nin dilay kadibna uu ka soo qaatay waxay tiri waa sir qari salaama warkii soo qaaday Suhayr ibn Jadiim ay u keentay hadda Suhayr ibn Jadiim wuxuu ogaaday marka inankiisii ama wiilkiisii ninka dilay wuxuu isugu yeeray qabiilkii reer Bani Khani qabiilkii markuu isugu yeeray wuxuu yiri qabiilku waa ogyihiin in waa ogaadeen in thaclabahan kamida uu dilay Suhayr ibn Jadiim wiilkiis wuxuu yiri saddex doorashaan idin siinaa mid doorta inaa wiilkayga ii soo nooleysaan oo qabriga ka soo saartaan isagoo nool waa khiyaarka koowaad haddaa kari weydaan waxaad samaynaysaan inaad xidigaha samadoo dhan aad ku soo shubtaan faraqayga haddaad awoodi weysaanna inaan idinka dhan idiin dilo wiilkayga inaa ii timaadaan reer Bani Khani haddaad tihiin saqiir iyo kabiir dumar rag idinkoo soo kala harin idinka dhanna aan idiin dilo wiilkaygii waxay dhaheen waa ogtahay mayd ma noolay karno xidigana faraqaaga kuma soo shubi karno laakiin tan aad tiri inaa idin wada laayo reer Bani Khani waa xur cidna isku duleemayaan laakiin arrinkaas arrin ka khayr badan aan ku haynaa waxaan ku siinaynaa wiilkaagii ninkii dilay Thaclaba wiilkaaga u dilo sidoo kalena waxaan kuugu daraynaa 10 nin diyadood wuxuu yiri Suhayr ibn Jadiima wiilkaygii ma aha neef geela oo dad loo qalay markaan qaadanayo lacagtiisa geel maaha wiilkaygii ninkan aan leeyihiin Thaclaba ah wiilkaaga dilay u dilana waa ku dhiibaynaa isaguna uma dhigmo wiilkayga uma dhigmo waa ka liita camal sidaas darteed iska daay idinka dhan ayaan idin laynaya wiilkayga idin laynaya wuxuu yiri sidoo kale nus idinka midana waxaan u dilaa dhiirashada ay igu soo dhiirateen nuska soo harayna waxaan u dilaa wiilkayga dartiis idinkoo dhan laakiin waa diideen labadii qabiilna waxaa dhex maray dagaal muddo socday dagaalkaas waxaa ku geeriyooday Suhayr ibn Jadiim al-Cabsi iyo ninkii wiilkiisa dilay Thaclaba qisaduna halkaas ayay ku dhamaatay laakiin qisada waxaan u soo qaatay waxay ahayd laba wax qaabka caqliyeysan ninkaas Suhayr ibn Jadiim uu ku soo saaray ninkii wiilkiisa dilay hal sano kadib isagoon aqoon markii hore tan labaadna oo ugu weyn waxay ahayd inuusan dulmigu ahayn wax lagu liibaano ninkaas markii la yiri wiilkaaga ninkii dilaa lagu siinaa iyo 10 diyo waa diiday wuxuu yiri idinka dhan idin dilaa waxay ahayd isla weynin iyo dulmi uu dad dulminayo laakiin ma helin waxba kama helin wiilkiisii aarkiisina ma helin dagaalkii uu ku dhintay waxna ma dheefin waxaan u soo qaadan waxay ahayd dulmigu inuusan ahayn wax lagu liibaano intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeeni maanta haddii ay tahay markii kuugu horreeyay channelka subscribe like iyo share anaga baqiilin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh